السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن دمانتي مساحيبيال halkani waa diirada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe oo markaan si toos ah u gashay xaaladii bariga dhexe la dhigi jiray qodobada aanu ku soo gudbin doono qaybtan ama aynu ku faahfaahin doono hadii eebaweyne uu qadaro waxa kamid ah dawladaha Israa'iil iyo Mareykanka oo duqeymo iyo weeraro aanan caadi ahayn maanta ku qaaday dawladda Iran iyaga oo beegsaday xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalkaasi Iran haddaba maxaa ka jira in la dilay hogaamiyihii ugu sareeyay ee dawladda Iran Ayatollah Ali Khamenei waxaanu idin soo gudbin doonaa xaalad aanan caadi ahayn oo duqeyn ah oo ka dhacday hoyga rasmiga ah ee magaalada Tehran uu ka deganaa hogaamiye Ali Khamenei haddaba ma dhabba in uu halkaasi ku dhintay kadib markii la baahiyay muuqaalo muujinaya in burbur xoogan iyo ooro iyo qiiq ay isqabsadeen halka uu deganaa Ayatollah Ali Khamenei faahfaahino iyo waxyaabihii laga yiri ayaanu idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale aan idin soo gudbin doonaa waxaa kamid ah Iran oo jawaab celin degdeg ah samaysay isla markaasina duqeysay inta badan wadamada Carabta ee uu saldhigyada ku leeyahay ee Mareykanka waxaanu hadaba idin soo gudbin doonaa hadii eebaweyne uu qadaro magaalooyin ay kamid yihiin Abu Dhabi iyo sidoo kale Doha oo duqeymo iyo sidoo kale bartilmaameedyo culus ay ka fulisay dawladda Iran waxaanu soo qaadan doonaa Iran oo wacad ku martay in dhammaanba bariga dhexe uu si toos ah u ololi doono hadiiba iyada markaasi la soo weeraray maxay ka dhigan tahay in Iran ay duqeymo aanan caadi ahayn ka fuliso magaalooyinka Doha iyo waliba sidoo kale Abu Dhabi warbixinadii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa qodobada kale aan idin soo gudbin doonaa waxaa kamid ah Israa'iil waxa ay sheegtay in la beegsaday oo ay bartilmaameedsaday ama ay bartilmaameedsatay saraakiishii ugu sarsareysay ee ciidanka ilaalada kacaanka waxaanu idin soo gudbin doonaa Israa'iil oo ku dhawaaqday in ay dishay taliyihii ugu sareeyay ee ciidamada guud ee dalkaasi Iran ma dhabba in la dilay taliyahaasi warbixin ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa hadii eebaweyne uu qadaro qodobada kale waxaa kamid ah Mareykanka oo howlgalkan ku tilmaamay in uu yahay mid la doonayo in lagu dilo isla markaasina lagu rido nidaamka kacaanka Ali Khamenei uu markaasi hogaaminayo waxaanu hadaba sidoo kale idin soo gudbin doonaa Ruushka oo arintani ka hadlay isla markaasina ku tilmaamay dagaalkaasi inuu yahay mid dhalinaya cawaaqib xun waxaanu ku baaqay in dhinacyadu ay markaasi isxakameeyaan xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo warbixinada kale ee soo kordhay ayaanu qaybteenan ku soo qaadan doonaa saaxiibayaal idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin la socoshada warbixinada iyo macluumaadyada aanu halkan soo gelino aynu ku bilaabano ama aynu ku horeysiino wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe dawladaha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa maanta si wada jir ah waxa ay duulaan rasmi ah ugu qaadeen dalka Iran oo kamid ah dawladaha dhaca bariga dhexe isla markaasina ah dawladaha ugu quwadda weyn ee bariga dhexe ku yaala Mareykanka iyo Israa'iil oo muddooyinkii dambeba qorsheynayay in ay weeraro culus oo aanan markaasi laga baaqsan karin ee ka geysanayaan dalkaasi Iran ayaa ugu dambeyntii maanta wax ay qaadeen weerar wada jir ah weerarkan oo ahaa mid aad iyo aad u sareeyay isla markaasina ay aad u abaabulayeen maalmihii dambe Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxa lagu qaaday xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalkaasi Iran goobaha la bartilmaameedsaday waxaa kamid ah guriga uu degan yahay hogaamiyaha ugu sareeyay Iran Ayatollah Ali Khamenei kaasi oo ay weerar toos ah ku qaadeen labada dawladood ee Mareykanka iyo waliba sidoo kale Israa'iil waxa sidoo kale la beegsaday bartilmaameedyada saldhigyada military ee ciidamada Iran waxa sidoo kale la beegsaday oo la duqeeyay xarumaha nuclearka ee dalkaasi Iran sida xarunta weyn ee Isfahan iyo xarumo kale oo muhiim ah oo markaasi ay beegsadeen ciidamada iyo waliba sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee dalalkaasi Israa'iil iyo waliba sidoo kale Mareykanka haddaba waxaa jira macluumaadyo ka soo baxaya duqeymihii iyo weerarkii cuslaa ee sida wada jirka ah ay u qaadeen Israa'iil iyo waliba sidoo kale Mareykanka warbixinadii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa waxay sheegayaan in duqeymihii lagu fuliyay hoyga ama guriga uu dalkaasi ka degan yahay Khamenei ay dhaliyeen warar kala duwan oo iskhilaafsan warar soo baxay ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay xubnihii ugu sarsareeyay ee hogaanka dalkaasi Iran waxa Israa'iil iyo Mareykanka ay sheegayaan in ay naafeeyeen Ayatollah Ali Khamenei sidoo kale ay dileen xubno sarsare oo ka tirsan ilaa ay hadda ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan in si rasmi ah uu u geeriyooday ama la dilay hogaamiye Ayatollah Ali Khamenei laakiin se waxa la baahiyay muuqaalo muujinaya qiiq
uuro iyo gubasho aanan caadi ahayn oo isqabsaday guriga ama hooyiga uu ka degan yahay Iran Ayatollah Ali Khamenei. taasi ayaa dhalisay doodo badan oo ku saabsan in waxyeello ay gaartay hogaamiyaha dalkaasi Iran. sidoo kale Israel waxa ay ku andacoonaysaa in ay iyadu markaasi beegsanayso xarumaha nuclearka halka Mareykankuna uu beegsanayo talisyada iyo fariisimaha ay leeyihiin ciidamada markaasi waa ilaalada iyo waliba sidoo kale saraakiisha ugu sarsareysa ee hogaanka talada dalkaasi haysa. marka la fiiriyo qiiqa iyo uurada qabsaday hooyiga Khamenei ma jiraan faahfaahin kale oo rasmi ah oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee Khamenei. warar ay baahiyeen ciidamada ilaalada kacaanka waxay ku sheegeen in halkii uu deganaa Khamenei laga qaaday la sageeyay goob ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo sida ay iyagu ku doodeen Iran. laakiinse wax waliba waxa ay soo ifbixi doonaan saacadaha soo aadan iyo marka howlgalka uu markaasi si tartiib u soo dhamaado. laakiin weli Mareykanku waxa uu markaasi wadaa bartilmaameedyada iyo weerarada uu ku qaadayo gudaha Iran. Israel ayaa iyaduna sidoo kale xoojinaysa weerarada lagu qaadayo dalkaasi Iran. haddaba arrimaha la yaab kale ee dhacay waxaa ka mid ah in markii ay bilowdeen duqeymaha iyo weerarada tooska ah ee Israel iyo sidoo kale Mareykanka in la arkayay shacab aad u fara badan oo dabaaldegaya isla markaasina isugu yimid goobo ka mid ah magaalooyinka dalkaasi Iran iyaga oo shitay music ay ku qoob ciyaarayaan. waxa ayna sheegayaan oo ay ku faraxsan yihiin in la weeraro oo la bartilmaameedsado rejiimka uu hogaamiyo Ayatollah Ali Khamenei. taasi ayaa waxa ay ka dhignaanaysaa in shacabka ay yihiin kuwa aad uga soo horjeeda hogaanka dalkaasi haya muddada dheer ee ay dhibaatada badan markaasi ka tabanayaan. Mareykanka ayaana marmarsiyaha uu dagaalkan ku soo galay waxa ay ka dhigan tahay banaanbaxyadii ugu dambeeyay ee dalkaasi Iran markaasi ka dhacay. waa arrimaha la yaab kale dal shacabkii lahaa ay u dabaaldegayaan in la dumiyo dalkaas oo ay dumiyaan dowlado cadow ah oo ay ugu horeyso dowladda gumaystaha ee Israel. haddaba markii weeraradu sidaas ay ugu dhaceen Iran kadib maxaa dhacay? dowladda Iran ayaa iyaduna si mug leh waxa ay uga jawaabtay weerarkii iyo duulaankii gardarrada ahaa ee maanta ay ku soo qaadeen dowladaha isbahaystay ee Mareykanka iyo sidoo kale Israel. ugu horreyntii waxa ay markaasi Iran bartilmaameedsatay oo ay iyaduna si ba'an u duqeysay dhammaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Khaliijka sida dowladaha Qatar, Imaaraadka, Bahrain, Kuwait iyo waliba sidoo kale kuwa kale. waxaa la tilmaamay in kaliya ay dowladda Iran in ay ka badbaaday duqeynteeda dalka Cumaan la yiraahdo. sababtan waxaa lagu sheegay in dowladda Cumaan ay tahay dowladda markaasi dhexdhexaadinta Iran iyo sidoo kale Mareykanka markaasi ku jirta. laakiin dhammaan dalalka kale ee Khaliijka waa la duqeeyay. meelaha sida ba'an Iran ay u duqeysay waxaa ka mid ah magaalooyinka Doha iyo waliba sidoo kale Abu Dhabi. waxaa la arkayay muuqaalo naadir ah oo laga soo tabiyay magaalada Abu Dhabi halkaasi oo ay ku dhaceen gantaalada riddada dheer ee dowladda markaasi Iran. waxaana la arkayay meelo muhiim ah oo gubanaya oo ku yaala dalkaasi Imaaraadka war-saxaafadeed ayay soo saareen waxa ayna ku sheegeen in weerarkaasi ama duqeymahaasi uu ku dhintay hal qof halka khasaare maaliyadeed iyo mid markaasi burbur ahba uu markaasi sababay weerarkii gantaalada ahaa ee Iran ay ku qaaday dalkaasi Imaaraadka Carabta. Imaaraadku waxa uu sheegay in lagu soo xadgudbay madax banaanidiisa tallaabooyin jawaab celin ahna uu ka qaadayo oo uu ula jeedo in uu weerarayo Iran. dhinaca kale magaalada Doha ayaa iyaduna la arkayay goobo markaasi ay ku dhacayeen gantaalo ay soo riday dowladda Iran halkaasi oo la arkayay qiiq iyo uura fara badan oo isqabsatay caasimadda dalka Qatar laftirkeeda war-saxaafadeed ama bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in lagu soo xadgudbay madax banaanideeda isla markaana ay qaadayso tallaabooyin arrintaasi ay kaga falcelinayso oo ay markaasi ugu jawaabayso dowladda Iran waxa ay sidoo kale weerartay oo weerar ba'an ay ku qaaday Israel. waxaa la arkayay magaalada Tel Aviv meelo badan oo ka mid ah oo gubanaya. meelaha gubtay ee la soo wariyay ee muuqaalada la soo bandhigay waxaa ka mid ah goob laga raaco basaska dadweynaha halkaasi oo ay ku dhaceen gantaalada ay soo tuurtay dowladda Iran waxaana gubanayay basas badan. waxaa la arkayay ciidamada gurmadka degdega ah ee markaasi dababka damiya oo isku dayaya inay xakameeyaan dab qabsaday
qaar ka mid ah gawaarida basaska ee dalkaasi Israa'iil. tani waxay ka dhigan tahay in Iiraan ay bixisay jawaab aanan caadi ahayn, laakiinse falanqeeyaasha amniga ayaa waxay ku tilmaameen in dowladda Iiraan tallaabada ay kaga jawaabtay weerarkan in uu bixinayo jawaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin in Iiraan la gaarsiiyay khasaaro xooggan haddii ay ahaan lahayd in la bartilmaameedsaday saraakiishooda ugu sarreysa ee ciidanka ilaalada kacaanka iyo si la mid ah saraakiisha ugu sarreysa ee hoggaanka talada dalkaasi haysa ee Khumeyni uu ugu horeeyo. maxaa yeelay waxay leeyihiin jawaabta ay bixisay dowladda Iiraan oo ah in ay riday gantaalada ridada dheer iyo in ay si isku mid ah u duqeysay dhammaanba dowladaha khaliijka iyo sidoo kale Israa'iil ayaa keenaysa in khasaaro xooggan markaasi la gaarsiiyay Iiraan. sidoo kale waxa ay ka dhigan tahay in Iiraan ay dareentay in khatar amni oo weyn oo dhab ah ay markaasi soo food saartay, taasi oo ka dhigan inay u baahan tahay in ay si degdeg ah arrimahaasi uga falceliso. arrimahaasi ayay ku sheegayaan dadka falanqeeya sababta keentay in Iiraan ay jawaabo degdeg ah ka bixiso, weliba jawaabo dhammaystiran duulaankii markaasi lagu soo qaaday dalkaasi Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arrintan ka hadlay waxa uu sheegay in howlgalkan uu yahay mid markaasi muhiim ah, isla markaasina la doonayo kaliya in meesha looga saaro ama lagu dumiyo taliska uu hogaamiyo Ayatollah Ali Khumeyni. dhinaca Israa'iil, ra'iisul wasaarahooda Netanyahu waxa uu sheegay in howlgalkan ay ugu dareen amaba ay ugu magac dareen waxa loo yaqaano aarka guuxa, waxaana uu sheegay in howlgalkan uu noqon doono mid gebi ahaanba lagu sifeeyo haraadiga Ayatollah Ali Khumeyni iyo rejiimka muddada dheer halkaasi haystay. Iiraan waxaa lagu haystaa maxaa u samaysanaysaa hubka nuclearka, sidoo kale maxaad u samaysanaysaa hubka aanan caadiga ahayn ee markaasi plastiga ah ee isaga gudba qaaradaha ee ay markaasi Iiraan caanka ku tahay ee loo yaqaano hypersoniga, kaasi oo ah mid ka mid ah hubabka ay sida weyn uga qaylinayaan hadda markaasi reer galbeedka. si kastaba haatee, Israa'iil qorshaheedii ahaa in la weeraro Iiraan oo gadaal ay ka riixaysay muddo dheer waa uu guuleystay, waxaana weerarkan markaasi si wada jira u fuliyay Mareykanka iyo weliba sidoo kale Israa'iil. xaaladda bariga dhexe waa ay qasan tahay, waana waxa hadda loogu yeeri karo bariga dhexe xaaladeeda. waxaa dhammaanba la xiray hawooyinka kala duwan ee dalalka bariga dhexe ku yaala, dhammaanba waxa istaagay isku socodkii hawada, iyada oo dhammaan dowladaha carabta, khaliijka iyo dhammaanba ay xireen hawadooda, iyaga oo sheegay in sababtu ay tahay dagaalada iyo weliba sidoo kale howlgalka markaasi bilowday. sidoo kale waxaa dagaaladan ka hadlay dowladda Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa waxa ay war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in weerarka lagu qaaday Iiraan uu yahay mid cawaaqib xumo ka dhalan kara, waxaana Ruushka uu ku baaqay in ay isxakameeyaan dhinacyada isla markaasina laga shaqeeyo wada hadalka. laakiinse dunida ayaa hadda waxay u muuqataa mid gelaysa mawjado waaweyn oo markaasi dagaal, iyadoo aanan la ogeyn dagaalkan inta uu markaasi socon karo. laakiin saraakiil u hadlay Mareykanka waxa ay sheegeen in dagaalkan uu qaadan karo maalmo, taas oo ka dhigan in xaaladdu ay markaasi sii adkaanayso. macluumaadyada iyo wararka kusoo kordha arrimahan saaxiibayaal halkan ayaa toos ugula socon doontaan haddii eebaween uu qadaro. qaybteenii aynu kaga hadlaynay weeraradii lagu qaaday Iiraan iyo jawaabtii ay ka bixisay, iyaduna intaas ayaanu kusoo koobaynaa. wararkan iyo macluumaadyadan iyo barnaamijyadan kuwa lamid ah intaanu dib ugu kulmi doona, khiyaarta aynu jecelnahay dhammaanteen isku duubin. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan